arinta la yaab kale mucjisada li waxa weeyaan komishankii doorashooyinka 7 xubnood gudbintoodii soo xiristoodii haday madaxweyne tahay haday xisbiyada qaranka tahay haday guurtida tahay waa la soo xulayo waa loo gudbiyay golaha wakiilada dadku waxay sugayeen in marka u dhigtaagayeen in hawshaasi sidii loogu tala galay u dhacdo waxa fajicisan noqotay oo ama kaag wax la yaab la noqotay runtii warqad uu qoray meesha taale waxa weeyii dhaqankii sida ahaa waxa indhaha ka riday oo biyay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi gudoomiyaha xisbiga wadani oo ay muuqato inaanu dhaqankii Soomaalida waxba kala socon aanay maaragtay wax macluumaad aanu ka haysan markay arinku inan istaago war waa inan baa la oran jiray dib baa loo fadhiisan jiray waa la xishoon jiray waa la tixgelin jiray dhaqan bay ahayd taariikh bay ahayd milgeel ahayd dhaqanka Soomaalidana waxay ahayd xurmadu inantu markay silmaan xagga inanta la mari jiray marka waxaan filaynay kursi lagu fadhiyo in looga kaco ama loo daayo laakiin meel loo xushay loo gartay oo muwaadino tahay oo xaq u leedahay in gudoomiyaha xisbiga wadani warqadda intaan la ka qoro waa arin fool xun oo ceeb ah waa arin bulshada Soomaaliland arkayso hablaha reer Soomaaliland qaaliga ee dalka u soo halgamay waxa weeyaan dib u dhiski dalka soo qayb qaatay xubintii hablaha ee lagaga daray muxuu ahaayeen komishanka doorashooyinka qaranka markuu isagu uu leeyahay waan hor istaagaya oo warqad qorayo warqad aanu is-hortaag aanu xaq u lahayn ayuu qoray laakiin waxay tusaysaa nacaybka uu hayo hablaha reer Soomaaliland iyo hablaha reer Gabiley gaar ahaan inta warqadda ka qoray marka la yiraahdo qof reer Gabiley meel lagu qorayaa ama qof reer Gabiley wax doonaya Cabdiraxmaan waa warqadaha nooca qoray marka inanimada laga yimaado marwada laga yimaado gabadha laga yimaado nacaybka iyo calool xumada inta leega Gabiley adu hayso waa arin la yaab kale oo mucjiso ah qodobka saddexaad kaga baxaya waxa weeye waxa kale oo xasuustaa shirkii gacan libaax isagoo gudoomiye Cabdiraxmaan fadhiya oo waliba dadkii ka hadlay kamid ahaa ayaa shirkii waxa lagu go'aamiyay laba beelood oo Soomaaliland ka tirsanay inaanay shirka ka soo xaadirin oo ka soo qayb galin isna uu dhex fadhiya war cod baan doonaya oo musharax baan ahay oo Soomaaliland baan u sharaxanahay hay ceebaynina ma oran oo la qaatay wali halkii buu marayaayo in riya raac iyo kaltuun halkii shirkii maalinta la lahaa ayaan labada beelood ka soo qayb galin luqadii gacan libaaxun buu ilaa maanta ku hadlaya waa iyadii si kala uu dhigan marka laga hadlay in riya raaciyo kaltuun oo mid Gabiley ka soo jeedo midna ka soo jeedo waxa weeyaan aban idhaahdo saraar waxay noqonaysaa arintii gacan libaaxun shirkii gacan libaaxun buu gudoomiyay wali wada xisbiga mucaaradka wadani oo ku adkaysto mowqifkiisa ah in labada xubnood laga reebo komishanka ma laga yaabaa in doorashadu mar labaad dib u dhac ku noqoto marka waxay noqonaysaa inaanu isagu doorasho doonayn horaba marmarsiyo doonayay golaha wakiilada waxaan u soo jeedinayaa iyaga inay waajibkooda gutaan xubintii aan shuruudaha buuxinay inay xaq bay u leeyihiin inay celiyaan xubintii shuruudaha buuxisana inay sii daayaan marka taa hadaba golaha wakiiladu waajibkooda guto ayaa la garan karaa natiijada markaa soo baxaysa laakiin iyagu xaq uma laha iyadoo golihii wakiiladu aan gaadhin inay maaragtay ka sii hor dhacaan oo ka hadlaan iyagu xaq uma laha Nikib Abdillah, Television Caalamiga Bulsho, magaalada Hargeysa.